Norway has wonderful name among international communities when it comes to human rights, peace building, conflict resolution and international agreements. Jeg begynte å følge norsk innvandring og asylpolitikk da Paul Løseth i AP var statssekretær, påmeldte, og jeg tenkte at nå skal vi få muligheten til å si fra. Og jeg irriterte meg grønn hver gang han møtte opp til debatt. Barnaamij looga soo horjeedo ama lagu codsanayo in dawladda Norway ay wax ka bedesho ama ay joojiso kala noqoshada dhalashada Norway oo muddooyinkii ugu dambeeyay lagala noqday baasaboorka dhalashada dad soo galootiyo in muddo ku noolaa dalkan ayaa ka qabsoomay magaalada Oslo isu soo baxnay soo abaabuleen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalkan ayna ka qayb galeen dad isugu jiray Norwegian iyo ajaanib badan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin ayaa lagu codsaday in isbedel lagu sameeyo guud ahaan sharciga soo galootiga gaar ahaan dhalashada waxaana maalinta berri lagu wadaa inuu baarlamaanka dalka Norway qaadi doono cod ku saabsan sharcigaasi dhalashada kadib markii codsi iyo qaylanaan ay ka timi qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalkan waa kuwan qaar ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee dibadbaxan ka qayb galay iyo dareenkooda berrito waxa fariisanaya baarlamaanka wadanka Norway wuxuuna ka wada hadlayaa in loo sameeyo sharciyo dhalashada wadankan qaadashadeeda iyo kala noqoshadeeda labadaba halkan waxa isugu imaanaya baarlamaanka wadanka Norway annaga ka urur ahaan iyo ka Soomaali community ahaan hoggaankeeda waxaan ka qayb qaadanay saddex xisbi oo kala duwan oo xisbiga Rodka SVga iyo MDga ama xisbiga deegaanka muhiimaduna waxay ahayd inaan muujino in arrintan ay tahay arrin saameynaysa bulshada Soomaaliyeed wadanka Norway waxa idinkaga muuqata meeshaas gadaasheeda ah ee uu ka dhacayo barnaamijkan ama baroordiiqdan loo dirayo dawladda Norway lagu kicinayo lagu xasuusinayo xisbiyada Norway in ay ogaadaan dadku inuu isku mid yahay adoo ah nin ajnabi ah marka aad wadani noqoto in aad wadanka nin wax ku soo kordhinaya tahay oo caruur aan ku dhalnay marka waxa nasiib dar ah in dadkeena ay guryaha ka fadhiyaan ay ka fiirsanayaan guryahooda iyaga oo fadhiya waxa ka dhacaya magaalada oo Soomaalidu waa dhibana aan dibkiisa ogeyn waxa ay ku mashquulsan yihiin Soomaalidu badankoodu marka runta aanu ka hadalno oo aanan ka leexleexan runta waxa ka jira dalkeeni hooyo marka maadaama aad og tahay dalkaagi hooyo waxa ka jira waxa la doonayaa dalka aad joogtana in aad cudud ku leedahay xoog ku leedahay isku duubnaan aad ku muujiso kan laga banaan baxay maanta ee dawladda Norway baarlamaanka loo sheegay waa arin taabtay dhamaan ajnabiga ah oo badnaadaan Soomaalidu waayo dad wadanka ku nool muddo dheer baasaboorradii laga noqonayaa arinkan waa arin baarlamaanka ka fadhiisanaya laba cisho kadib marka waxaan jeclaan lahayn Soomaali badan soo xoojiso ka soo qayb gasho saad aragtid ba cid badan ma joogto dhowr mar baynu ku joognaa meesha waxaanu nahay qowmiyadda labaad ugu badan wadanka waxaan u arkaa sheegeen xaalad isbishil anaga noqosaysa inay tahay oo ay dadka Soomaalida aad ay ugu dacdreeyeen meeshan waxaana ka xumahay maanta meeshaan aan soo imaan inaan aad ugu liidano oo dadka meeshii mid aan ugu tirayarnahay 4 qofood ama 5 qofood aan ku nahay marka waxaan ka codsan lahaa Soomaalida wadankan ku nool ee xagga sharciyada dhibaatada ka haystay especially inay ka soo qayb galaan banaanbaxyada noocan oo kala ah muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa sharcigan kala noqoshada dhalashada Norway waxa uu walaac xoogan geliyay guud ahaan soo galootiga oo aan loo kala aabayeelin si kasta iyo sanad kasta oo ay yimaadeen dalkan xasan raasta raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway